bismillaahi raxmaan raxiim daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warkii Soomaali News 724 halkan idinkaga akhrin doono anigoo Ismaaciil Cali Ajaay habeenimada caawa taariikhdu ku aastaysan tahay 25 Agoosto 2020 qodobada aad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo faahfaahiyay kulankii Fahad Yaasiin uu kula yeeshay hoygiisa warkeena ayaad ku daawan doontaan waxaad kaloo warkeena aad ku daawan doontaan shirarkii maanta sida gaargaarka ay ku yeelanayeen madaxda Jubbaland iyo Puntland Garowe ayaad warkeena ku daawan doontaan waxaad kaloo warkeena aad ku daawan doontaan madasha xisbiyada qaran oo beesha caalamka oo kulan ku yeeshay Muqdisho akhbaaraadka kale aan idin haynana waxaa ka mid ah Turkiga oo gaadiid dagaal ku wareejiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaad kaloo warkeena aad ku daawan doontaan cadawga meelaha uu naga joogo waan ka xoreynaynaa waxaa sidaa yiri madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor akhbaaraadka kale caalamka warkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mauritania oo la sii daayay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena ku daawan doontaan asxaabay u diyaar garooba haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe dhig gambaleelka taabo siina share garaysi asxaabtaada kale ay u gaarto warkii oo dhan وهاجاك داود يا لمن كان ندي سوق بتقدم كوجو هالريا وركينا أن كسوق قادن دونا مدحويني هراء الدلك حسن شيخ محمود أي فاهين كبحيي كلن كأو حلي مجالد مقدشة كل قاتي تليها هيئة النبض سجدة يسرتون كقرن كفهد ياسين حاج ظاهر مدحويني حسن شيخ محمود وحاو سعد وشجعي إن كلن كاسي وصن سياسة كسب سنين إسلام مركانا أي كوضة هلنا الرموك بحسنا سياسة وحاو سيدو كلا شجعي إن تليها وصوب بغضي ما دام وياهي قضي سوماليات أو هري دلك usoo maamulay kulankii aniga iyo Fahad Yaasiin nagu dhex maray hoygayga ma ahayn kulan siyaasadeed ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud war uu ku daawacay Twitter-ka waxa uu intaasi ku daray wax ajande siyaasadeed ah oo aan ka wada hadalnay ma jirin wuxuu ahaa booqasho salaan ah maadaama aan oday Soomaaliyeed ahayna qof kasta oo soo gasho gurigayga waa la xushmeynaa markasta iminkana Garowe magaalada Garowe caasimadda Puntland maanta waxaa si toos uga bilowday shir iyo kulamo kala duwan oo u dhaxeeya madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland labada hogaamiye iyo waxgaradka deegaanada maamulka Puntland ayaa lagu wadaa in ay si qoto dheer uga wada hadlaan qodobadii ka soo baxay shirkii dhawaana lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb kulanka waxaa ka qayb noqon doona siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku caansan deegaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland labada maamul ayaa horay war ay u soo saareen uga soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ee lagu heshiiyay hanaanka doorashooyinka dalka iminkana Muqdisho waxa soo gabagabay shir u dhaxeeyay beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaran kaas oo looga hadlayay heshiiskii Dhuusamareeb 3 kulankan ayaa ka dhacay xarunta xalane ee Muqdisho waxaana ka qayb galay hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran madasha ayaa u sheegtay beesha caalamka si uu heshiiska Dhuusamareeb u noqdo mid dhameystiran in loo baahan yahay ka qaybgalka dhammaan saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan maamuladii shirka ka maqnaa xisbiyada iyo ururada bulshada sidoo kale waxa hoosta laga wada xariiqay in heshiiska Dhuusamareeb 3 u baahan yahay in lagu cadeeyo waqtiga doorashada la qabanayo iyo in xal loo helo khilaafka baarlamaanka labadiisa gole si ay u ansixiyaan heshiiska Dhuusamareeb iminkana Turkiga dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya soo gaarsiisay 12 gaari kuwaasi oo qayb ka ah heshiisyo military iyo iskaashi dhaqaale oo laba geesood ah wasaaradda difaaca Turkiga ayaa sheegtay bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in gawaaridan loogu talagalay in lagu isticmaalo dhul aad u qalabsan looguna talagalay guutada saddexaad ee ciidamada gorgor ee dawladda Soomaaliya gaadiidkan waxa loo gacan geliyay taliyaha ciidanka difaaca Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 22 Agoosto Turkiga ayaa Soomaaliya ka caawiya dhismaha iyo tanyeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iminkana Galmudug munaasabad balaaran oo lagu taageerayay mirihii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa xalay lagu qabtay fagaaraha shirkole ee magaalada Dhuusamareeb munaasabadan waxaa soo agaasimay maamulka caasimadda iyadoona ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Maxamed Nuur Gacal xubno ka
ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo baarlamanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweynaha galmudug oo munaasabadda ka jeediyey khudbad ayaa sheegay in galmudug ay guul ka gaartay shirkii dhuusamareeb 3 oo ay ka soo baxeen qodobo ku aadan hanaanka doorashooyinka dalka. qoorqoor ayaa sidoo kale tilmaamay in galmudug ay qaadi doonto howlgallo waaweyn oo al-shabaab looga saarayo degmooyinka ay weli gacanta ku hayaan ee ku yaala galguduud iyo mudug. waxa uu xusay in loo baahan yahay taageerada shacabka si loogu guulaysto in degmooyinka Xaradheer, Ceelbuur iyo Ceeldheer dib loogu soo celiyo gacanta maamulka. iminkana akhbaaraadka caalamka. madaxweynihii hore ee dalka Mauritania Maxamed Abdulcasiis ayaa xabsiga laga daayay kadib markii muddo isbuucyo ah u xirnaa booliiska si ay su'aalo uga weydiiyaan arrimo la xiriira tuhun musuqmaasuq. qareenkiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Abdulcasiis laga mamnuucay inuu ka baxo magaalada caasimadda. Abdulcasiis ayaa 17kii bishan Agoosto looga yeeray xarunta dembi baarista iyadoo maanta fasaxday kuna amartay in uu la shaqeeyo dembi baarista welina uu socdo baaritaankiisa. warkii aad ka daawanaysan Somali News 724 daawadayaal waa naga intaasi wararka iyo muuqaalada aan channelkan soo gelino. subscribe dhega baleelka taabo siina shargalay si asxaabtaada kale u gaarto.